asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa sheeko xiiso badan oo dhex martay sargaal ka tirsanaa sirdoonkii Soomaaliya iyo sidoo kale sirdoonka Muusaad ee maamulka Israa'iil. sheekadan waxaad ka ogaan kartaa tayadii iyo awooddii ay lahaayeen hay-adihii sirdoonka ee Soomaaliya. maadaama dadka igu xidhan ay aad u daneeyaan arrimaha sirdoonka, sidaas daraaddeed ayaan baaritaano iyo warbixinno badan aan iskugu shuqliyaa inaad ka heshaan ama aad ka ogaataan arrimaha sirdoonka. haddii aan kaftamana dad badan ayaa arrimaha sirdoonka wax iga weydiiya, kuwaas oo qaarkood xitaa aniga i tuhma. laakiin kuliyadeedii jaamacadda ee aan ku dhameeyey bachelarka ayaa waxay ahayd kuliyadda humanity-ga, gaar ahaana social science-ka. taas ayaa waxay igu dhalinaysaa in dadkayga Soomaaliyeed ay ogaadaan wax badan oo caalamka ah. sheekadan waxaa qoray Xiirane oo ahaa sargaal hore oo ka tirsanaa sirdoonka Soomaaliya sanadihii 1976 ilaa 91, waxaana ay ahayd mid xiiso badan. waxaana ka sheekaynaya Master Xiirane. hay-adda USAID ee dalka Mareykanka oo sanadkii 1976 lacag dhan $29 milyan oo dollar ku bixisay mashruuc waraabineed oo loo sameynayay dalka Itoobiya, iyadoo arrintaasi looga gol lahaa in lagu curyaamiyo laguna oomiyo Soomaalida beeraleyda ah. bishii Janaayo ee sanadkii 1976 ayaa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay waxa uu shiriyey xubnihii golaha sare ee kacaanka, waxaana laga xaajoonayay waraaqad ama xaashi sir ahayd oo laga soo dusiyey xafiiska laanta beeraha adduunka ee FAO ee fadhigeedu uu yahay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga. warqadda waxa ay sheegtay in dowladda Mareykanka ay doonayso inay biyaha ay ka jirto beeraleyda Soomaaliyeed ee ka cabab webiga Shabeelle, iyada oo la adeegsanayo mashruuc waraabineed oo loo sameynayo dalka Itoobiya. hay-adda horumarinta caalamiga ah ee loo yaqaano USAID ee dalka Mareykanka ayaa ku yaboohday lacag gaaraysa $29 milyan oo dollar, waxaana Washington ay ugu talagashay in lagu oomiyo Soomaalida beeraleyda ah, iyadoo mashruucaasi ay fulin lahayd shirkad Israa'iil laga leeyahay. muddo 9 bilood ah ayaana la karinayay qorshaha laga yeelayo mashruucaasi ay doonayso Washington inay ku gumaado wax soo saarka Soomaalida iyadoo adeegsanaysa xeel dheerayaal Yahuud ah. dhammaadkii bishii 9aad ee sanadkii 1976 ayaa la iiga yeeray xafiiskii madaxweyne Siyaad Barre. waxay ahayd shaqo dibadeed tii iigu adkeed ee la ii diro, iyada oo ay jirtay inuu ahaa sanadkii iigu horreeyay ee aan soo mooganaa dugsigii ku yaalay magaalada Moscow ee barashada xeeladaha ilaalinta qarankii dalkii Soofiyeed ee Ruushka, waana sanadkii koowaad ee aan si rasmi ah uga howl bilaabo sirdoonkii Soomaaliya ee NSS-ta loo yaqiinay. qorshe dhammaystiran ayaa gacanta la ii geliyey, waxaana u dhoofay magaalada Lagos ee dalka Nigeria oo ka mid ahayd marinadii iyo jidadkii shaarbadelashada ee NSS-t Soomaaliya ama sirdoonkii Soomaaliya. kadibna magaalada Budapest ee dalka Hungary, halkaas ayaan ka aaday ama aan ka tagay ama aan ka sii gaaray magaalada Tel Aviv oo caasimad u ahayd Israa'iil. markii iigu horreysay waxaan fiidkii diyaaraddii aan la socday ay caga dhigatay dhabaha diyaaradaha ee Ben Gurion la yiraahdo. waxaan habeenkii aan u hoday hotel aanan haatan magaciisa aan xasuusan. aroortii ayaan doontay guri aan ka shaqo tago, waxaana guri ka kooban jiif, jiko iyo fadhi isku qoofilan aan ka helay oo aan ka kireysay dhismaha 37 ee jidka ama wadada la yiraahdo Yuushac bin Nuun ee magaalada Tel Aviv. 3 cisho ayaanan intaanan fiidkii baxo aan soo iibsanayo dhowr dhallo oo qamri ah, kadibna intaan suuliga ama musqusha ku qubo ama ku daadiyo ayaan dabadeed miiska saartaa wax ka bashadhan oo haraa ah aniga oo iska dhigaya nin qamriga caba. waxaan sidaasi u yeelayay haddiiba ay dhacday inay soo galaan qolkayga sirdoonka Israa'iil inay ii arkaan nin iska tumanaya oo qamriyo cab ah. waxaan maareeyay in aan la xiriiro shirkaddii qaadatay qandaraaskii oo la yiraahdo Netavim, anigoo iska dhigaya nin ganacsado taajir ah oo ka yimid dalka Argentiin. waxaan ula tagay tusmada dhulbeereed baaxad leh oo ku yaala gobolka lagu magacaabo La Pampas oo 790 kilomitir u jira xarunta ama caasimadda dalkaasi ee Buenos Aires. dhulkaas oo aan sheegay inaan leeyahay ahayna taajir doonaya in loo sameeyo waraab casri ah. dabadeedna iyaga oo isoo dhaweynaya ayaa la iska kaayo baray ninkii injineerka biyogelinta ka samayn doona dalka Itoobiya. waxaana maalin walba aan telefoonka aan kula xiriiraa sargaal ka tirsanaa sirdoonka Soomaaliya ee NSS-ta oo taliska sare ee sirdoonka Soomaaliyeed u fariisanaya magaalada San Luis oo aanan ka fogeyn beerteeda gobolka ay ku taalla ee Argentiin. waxaana ka dhigaya ninkaas sida inuu yahay sargaal beerteeda qaabilsan.
markii aan 12 maalmood wada hadal kula jiray shirkadda ayaan waxaan dhaliyay 3 gool iyaga oo xogo sirdoon oo muhiim ah ay dalkaygii hooyo ee Soomaaliya aan u soo helay aniga oo maagan ama doonaya in aan 2 kale aan ku daro ayuu ii sheegay sargaalkii Soomaaliyeed ee San Luis joogay in beertii uu cayayaan galay ayna halis ku jirto haddii aan si dhaqso ah loo daaweyn inaan la iga maarmaynin waa uu ii sheegay dabcan hadalkaasi wuxuu ahaa inay dhici karta in la iga shakiyay markaana inay tahay in aan durba dhoofo sidii ayaana yeelay jidkii dheeraa ee hoyashada ayaan u soo biyo dhaansaday anigoo aan ka xumeyn inay 2 xog ay ii dhinneed safarkii iigu adkaa shaqada iguna halista badneed iyo waxay ahayd socdaalkii iigu horreeyey wuxuuse ahaa marinka 9 socdaal oo aan ku tagay gadaashii wuxuuna ahaa bilowgii socdaal dheer oo nafa badan galaaftay xurriyaddu waa ubax haddaan laga dhowrin cayayaanka ayaa daldalool u yeela haddaanan dhiig badan loo daadinna guriga nabad lagama dareemo hadduusan jecel dhaba jirin waan ka xumahay inaana sii helin xogta oo dhammaystiran taasoo ku aadanayd in warbixinta uu soo helay lagu badbaadiyey waraabkii Itoobiya ay doonaysay in loo sameeyo isla markaana lagu curyaaminayay biyaha webiga Shabeelle laakiin nuxurka sheekada ayaa waxa ay tahay tabaha ay adeegsanayaan marka hay-adaha sirdoonka ay doonayaan in xog iyo xuraan dheer ay ka helaan dal shisheeye waxaa kaloo nuxurka warbixinta ay tahay in muhiimadda la siinayo dalka loo adeegayo waxaan filayaa inaad ugu yaraan aad iftiin kooban aad ka heshay taasoo ku aadan tabaha sirdoonka ay adeegsadaan iyo sidoo kale awooddii ay lahaayeen hay-adihii sirdoonka ee Soomaaliya waan kaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan haddii ay tahay markii kugu horreyso aad soo boqorto barteeda YouTube-ka ee Marcadda Show fadlan subscribe dheh si aad u noqoto ruux hela muuqaalada kale ee halkan aan ku soo gudbiyo waxaan inta badan aan kaga hadlaa muuqaalada xigmadaha arrimaha sirdoonka caafimaadka qoyska iyo sheekooyinka taxanaha ah ee la xiriira arrimaha caafimaadka iyo sirdoonkaba intaan muuqaalka xiga ku kulmi doono waxaan kaaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh